waddanka Jabuuti waa waddan jamhuuriyad ah waxa uu leeyahay madaxtooyo iyo baarlamaan waxaana madax ka ah dad Soomaaliyeed. madaxweynaha dalkaasi Jabuuti hadda waa Ismaaciil Cumar Geele oo talada dalkaasi loo doortay sanadkii 1999. madaxweynaha labaad ee ahaa kii ugu horeeyay ee soo mara talada dalkaasi kadib madax banaanida markii uu Faransiisku ka qaatay waa Xasan Guleed Abtidoon. waxa uu codsiga shacabka reer Jabuuti uu ka helay codad gaaraya 100%, waxaana codsaday 78.9% shacabka jamhuuriyadda dalka Jabuuti oo idil. baarlamaanka dalka Jabuuti waxa uu leeyahay 65 mudane baarlamaan oo la doorto 5 ilaa 9 sano mar. Jabuuti waxaa jooga military ajnabi ah oo ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Mareykanka oo ayagu halkaasi xarumo saldhig military oo waaweyn ku leh. dalkaasi ayaa xubin ka ah Komeesa Qaramada Midoobay, Unionka Mediterraneanka, baarlamaanka Jaamacadda Carabta iyo ururo kale oo gobol iyo caalami isugu jira oo ay ka mid tahay urur goboleedka IGAD. dadka Jabuuti ku nool dhammaan waa Soomaali aqlabiyadda iyadoo ay ku xigto Cafar. waxa u badan Soomaalida oo ka badan 67% shacabka Jabuuti oo dhan. dadka Cafariga waa 91%. dadka kale oo ka yimid wadamada Soomaaliya, Yurub, Carabta iyo dalalka kale ee deriska la ah ayaa ah aqlabiyadda laga tiro badan yahay ee minority-ga. waxaa looga hadlaa afka Faransiiska iyo Cafariga oo ah luqadda rasmiga ah ee dalka Jabuuti, waxaana ku xiga luqadda af Soomaaliga iyo afka Cafariga oo ah luqadda labaad oo la aqoonsaday. afka Soomaaliga waxaa loo adeegsadaa heesta calanka Jabuuti iyo idaacadaha oo ku baxa 3 luqadood iyo afka Carabiga iyo heesaha. waxa ayna Soomaalida Jabuuti isku dayaan inay ku hadlaan afka Soomaaliga. afka Faransiiska waxaa loo adeegsadaa tabeelooyinka elektrooniga iyo waxyaabaha caalamiga ah, waxaana badanaa wadooyinka dalkaasi looga hadlaa afka Faransiiska. luqadda Cafarta waxaa loo adeegsadaa idaacadaha, heesaha iyo wixii la mid ah. Cafariga Jabuuti waxay isku dayaan inay ku hadlaan afka Cafariga. luqadda afka Cafariga waxaa looga hadlaa gobolka Cafar oo ku yaala dhinaca waqooyiga Itoobiya. jasiiradaha ku yaala dalka Jabuuti ayaa waxaa ka mid ah Moosha, Maskali, Abomaya, Ilawaramos, Ondadabali, Kadadabali iyo Geni Koma. Jabuuti waxay ku taalaa juqraafi ahaan bariga Afrika, waxayna xuduud la leedahay Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya iyo badda cas iyo gacanka cadmeed. weynigeeda waa 23,200 kilomitir oo isku wareega. Jabuuti waxay xuduudda ugu dheer la leedahay waddanka Itoobiya, waxaana lagu qiyaasaa 349 kilomitir. waxaa ku xiga dalka Eritrea oo 109 kilomitir ay xuduudeedii ku fadhido, halka Soomaaliya ay la leedahay 58 kilomitir. xeebta Jabuuti dhererkeedu waa 314 kilomitir. jawiga Jabuuti waxaa u dhaxeeya 31 ilaa 100 garaado. waa waddan aad u kulul oo saxaro leh. dhaqaalaha Jabuuti waa waddan yar oo ku yaala jidka ganacsiga. wuxuu la shaqeeyaa wadamada caalamka dhinaca dhoofinta alaabta iyo dhinaca shidaalka. dekadda Jabuuti waa dekad aad u camiran. waxaan ognahay in dekadda Jabuuti ay tahay meel ay dowladda Itoobiya wax kala soo degto kana dhoofiso. militariga waddanka Jabuuti waxa uu leeyahay ciidanka dhulka, cirka iyo badda. militariga Jabuuti waxa ay gaarayaan 16,763 askari, tiradaasi oo kala bar ay yihiin haween. hees ahaan 8,260 waa rag, halka 8,503 ay yihiin dumar. masjidka ugu horeeyay ee dhagax ah ee laga dhiso dalka Jabuuti waxaa dhisay Xaaji Diide. masjidkaasi ayaa loogu magac daray masjidka Maxamuud Xarbi ama Maxmuudi. wuxuu ku yaalaa meel loo yaqaano Place Rampo oo ah halkii sidoo kale loogu magac daray Place Maxamuud Xarbi oo ah fagaarihii uu ku geeriyooday halgamaagii weynaa ee xornimada dalka Jabuuti
ee maxamuud xarbi. waddanka jabuuti boqolkiiba 99 waa muslimiin. dadka waxaa ku jira in yar oo lagu qiyaasay 6 boqolkiiba oo kirishtaana. dalkaasi waxaa lagu xasuustaa geedi socodka nabadda ee Soomaaliya sanadihii 1991kii fadhigii dib u heshiisiinta iyo kaalintii uu kaga duwanaa dalal badan oo sohdin iyo danwadaag gobol iyo mid istiraatiiji amni iyo dhaqaale intaba la lahaa dalkeena Soomaaliya, kuwa oo iyaguna dadaaladoodu xagga gogosha dib u heshiisiinta aanay u miro dhalin sida tii ay gogashii Jabuuti ay dhigtay ay u noqdeen kuwo miro dhal ah. muhiimadda doorka firfircoon ee dalkan yar ee Jabuuti ayaa saameyn iyo xushmad weyn ku leh qulubta ummadda Soomaaliyeed oo iyaguna waa garab istaagay jamhuuriyadda yar xilligii gumaysiga Faransiiska. madax banaanida oo ay ka qaateen Faransiiska markii dowladii hore ee Soomaaliya ay gacan isugu jirta military, diblomaasi, dhaqaale intaba ay isugu geysay si uu dalkan Jabuuti u xoroobo. doorka firfircoon ee dalka Jabuuti oo ahaa dalka ugu yar wadamada Geeska Afrika ayaa inta la og yahay waxa uu ahaa kii ugu saameynta badnaa, gaar ahaan shirarkii uu qabtay Soomaaliya sida kii Carta ee 2000. shirar kale oo loo qabtay Soomaaliya ayaana noqon kuwo miro dhalay sida shirarkii Qaahira, Ethiopia oo iyaguna ahaa shir dib u heshiisiineed. xilligan oo uu jiro cudurka coronavirus ayaa waxaa la sheegay in dalkaasi uu diiwaangeliyey 98 xaaladood. xaaladahaasi oo ah kuwa ugu sarreeya marka loo eego heerka caabuqa ee qaaradda Afrika. dowladda Jabuuti ayaa gudbisay 484 bilyan oo ah dhaqaale la doonayo in lagu saacido ganacsiga iyo xarumaha cusbitaalada. madaxa ciidamada Mareykanka ee jooga dalkaasi ayaa ku dhawaaqay xaalad caafimaad oo bulsho oo degdeg ah in loo fidiyo, iyadoo ciidamada Mareykanka iyo kuwa qandaraaslayaasha ee xarumaha kule dalka Jabuuti ay tahay inay gacan ka geystaan tallaabadaasi oo uu sheegay in ay tahay in hore loo qaado si loo maareeyo halista cudurka oo sii baahaysa. xaaladaha kale ee dhinaca caafimaadka oo sii xumeyn kara istiraatiijiyadda dalkaasi oo ku yaala mandiqada Geeska Afrika. dalka Jabuuti ayaa kiisaska laga helay ee la diiwaangeliyey waxa ay yihiin kuwii ugu badnaa marka loo eego mujtamaca dalkaasi oo u muuqda inay si weyn isaga dhaga tireen waxyaabihii la soo rogay oo ay ka mid tahay in la qaato talooyinka dhaqaatiirta iyadoo la isticmaalka jeermis dilaha iyo agabyada kale ee lagu xirto afka.